marka accusative markii la joogo waxaa dhici karto laba magac laba qof macnaha laba qof inaa haysatid ama laba shay inaa haysatid ama qof iyo shay ama shay iyo qof ama qof iyo qof ama shay iyo shay okay marka subjectiga tusaale ahaan marka maxaa la dhahay sheeg waxa sameynaa marka person yani qof iyo shay aan keenana aniga مثلا ish waa moogtahay shaygan مثلا computer inta ku haystaa laba shay aan haystaa because nominative-ka hal shay bis haystaa hal qof iyo hal shay laakiin meeshan waxa haysataa shay maxaa la qof iyo shay iyo ficil ay imaanayaan saddex shay meeshan ay noqonayaan tusaalaha marka waxaan dhahaynaa ish kaufa den computer ish marka dhahayo waa isheeg waa nominative waaye nominative waa subjectiga waaye ficilka ah kaufan iibsashada ah iyo computer shayga aan soo iibsanayo marka hadda iibsashada hadda anima qosayso marka dhahay ish gehe way ka duwan tahay because marka dhahay ish kaufa den computer waxa iibsanaya anima ahan yani ani isma iibsanaya waxa iibsanaya waa computer ficilka marka wuxuu xiriir la leeyahay computerka marka saas darteeda computerku wuxuu noqonaa accusative haddii computerku oo ahaa der computer maxay isku bedelaysaa hor waa isku soo qaadan bilaaw videoga den ay noqonaysaa marka waa inaad tiraahdaa ish kaufa den computer ma dhihisid ish kaufa der computer ma dhihisid ish kaufa den computer ma fahanteen tusaale waxaa jira nominative hore aan soo qaadanaa aan dhahaye du schreibst adigu waa qoraysa waa nominative waa kaligeed halaas qofku wax qoray adigu waa laakiin ina wax kala keenan rabaa adigii qof hataa shakhsigaagi shay inaan keenan rabaa marka waxa qoraysa aan sheego brief maxaa dhahaynaa marka der brief waaye marka waa inaan ka dhignaa rabnaa accusative der waxay noqonaysaa den haddii ein ay ahayd waxay noqonaysaa einen ma fahanteen marka warqada qoraysa inaan ahnaa rabnaa marka waxay noqonaysaa marka du schreibst einen brief du schreibst einen brief marka hadda wax qorista awal hadday ahayd du schreibst bis ahayd oo qofku wax qorayay yani adigu waxa qoris meesh meel nominative waa laakiin markaan dhaho du schreibst einen brief macnaheedu waxay noqonaysaa marka wax qorista marka waxa qoraysa warqad waa marka ereygan ficilka qorid marka ficilka meesh yaal ee qoritaanka wuxuu xiriir la leeyahay waxa qoraysa waa warqad marka warqada waxay noqonaysaa accusative marka hadaa haysatid macnaha saddexdan shay hadaa haysatid oo shay aad sameynaysid oo wax direct oo ku dhacayo shayga kale waxa ku sameynaysid waa accusative hadii meesha wax kale uunan jirin oo adiga saa idin sheegay qofka bis oo iska hadla asi ficil bis meesha yaal wax kale uu yaalin nominative oo noqona marka waxaan ka hadlaynaa waa accusative sababta u dhahay einen baqiifna waxa waaye waa idin sheegay unbestimmte article waa macnaha qofkan warqada anaga oo qoreen warqadan qofka uu qoray waxay tahay lama yaqaan laakiin warqad uu qoraya saas darteed marka wax loo isticmaalaa unbestimmte article markaad isticmaalaysid der ama isticmaalaysid ein waxay ku xiran tahay shaygaas haddii uu qaadanayo unbestimmte article مثلا tusaale ahaan der ball kubadda sidoo kale waxaa la dhahaa ein ball kubad markii accusative la joogo waxay noqonaysaa den ball haddaan ku dhaho macnaha waa kubadii kubad aniga isla ognahay waa guriga taalo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan dhahay marka haddii aniga kubadda aan ka siino oo kubad aan iska dhahay ay banooni aan dhahayo marka waxay noqonaysaa ii sheeg einen ball taasina ogaataa muhiim marka der waxay noqonaysaa den haddii ein ay ahayd waxay noqonaysaa einen ma fahanteen laakiin maxaa la dhahay dast waxay noqonaysaa ein di haddii tahayna eine laakiin ein haddii tahay oo derta waxay noqonaysaa einen kuwaas muhiim oo article ka isku bedelayaan ina ogaatid waa qasab because jumlooyinka waa isku xiran yihiin ee article-ka ma fahanteen wir schauen einen Film wir schauen waxaan daawanaynaa einen Film waxaan daawanaynaa maxaa qofku wax daawanaa aniga waa haddaan dhaho wir schauen waxbaan daawanaynaa nominative waa because wax kale aan wax ku sameynayna ma sheegan waxaan daawanayna ma sheegan laakiin haddii meesha wax aan daawanayna aan sheegno marka daawashada maxay xiriir la leedahay objectiga wuxuu ku dhacayo marka waxay noqonaysaa wir schauen einen Film
waxaan daawanayn maxay waa film marka filmka waa accusative accusative kan marka wuxuu xiriir la leeyahay ficilka oo waxaan daawanayna ah ma fahanteen tusaale ahaan marka qofka dhehaysa oo kale tusaale ahaan ish liebe dish kan waa accusative dish adiga ah waa accusative oo pronomen waa magaciyaale ah qofka aan jeclayaa waa adiga waa shaygan jecelku wuxuu xiriir leeyahay adiga marka shaygaas kale marka qof iyo qof kale aan haysta markaysa anigi iyo waxaan sameeynaa iyo qof kale accusative-ka lagu sheegay waa saas waa marka tusaalooyin badan waa ka bixin doonaa idin sheegi doona macnaha tusaalooyin kala badan aan ka bixin doonaa iyadoo faahfaahsan u imaan doontaa marka hadda waxaan u gudbeynaa dative-ka u gudbeynaa dative-ka wuxuu kaga duwan yahay accusative-ka wax waaye dative-ka 3 shay uu ka kooban yahay 3 shay waaye ama 3 qof waaye tusaalaha markaa dhehaysid waxaan rabaa inaan soo iibiyo computer aan usoo iibiyo saaxiibkay 3 qof haysanaa waxaa haysanaa 2 qof iyo hal shay anigi iyo saaxiibkay iyo computerka marka qaar 3 qof ay noqon kartaa marka qaar waxay noqon kartaa 2 qof iyo hal shay marka qaar waxay noqon kartaa 1 qof iyo 2 shay wax saas oo kale 3 shay ama 3 qof waa inay wax ka kooban yihiin marka tusaale dative marka la joogo jumlada inay dative taasi ku ogaanaysa idin sheega marka inta idinku soo qoraa hadda waxaan leeyahay marka ich kaufe meinem Freund den Computer yani waxa usoo yani saaxiib Soomaaliga ma aqaano waxaan usoo iibinaa saaxiibkeyga computer ama waxaan soo iibinaa computer saaxiibkeyga usoo iibinaa ama saaxiibkeyga usoo iibinaa computer qofka wax soo iibinaa waa adi qofka loo soo iibinaa waa saaxiibka wax la soo iibinaa waa computer 3 shay haysanaa macna 2 qof iyo hal shay haysanaa marka dative markuu imaana hadda waa fiiriya directiga objectiga tooska wax la soo iibinaa computer waay accusative noqona marka waxa leedahay den computer ama einen computer a leedahay ma dhehaysid dem computer ma dhehaysid because dative ma wax la soo iibinaa toos waay qofkan loo soo iibinay marka objectiga kale oo indirectiga ah loo soo iibinaa waa saaxiibkay marka waxa waay fuqund waay article-ka maxaa waay der waay laakiin maadaama der tahay oo indirect uu jumlada uu ku jiro qofka saddexaad yahay markii der la joogo waa idin soo sheegay dative ku waxay noqonaysaa ama dative ku waxay noqonaysaa der dem haddii ein ay ahayd oo aynan ahayd waxay isku bedelaysaa einem fahant marka waxaan leeyahay marka ich kaufe computerka ma keenay computer waa u dameena waayo accusative waa shayga soo iibina waay marka ama waxa waay direct objective waay toos waxa waay objective oo tooska waay indirect ga soo hormarna marka waxa leeyahay ich kaufe meinem Freund hadii Soomaali loo tarjum qalad ay noqonaysaa waxay noqonaysaa aniga waxa soo iibsanaa saaxiibkay may saas maahan marka waxa waay marka ich kaufe meinem Freund den Computer aniga waxaan soo iibsanaa computer yaa usoo iibinaa saaxiibkay saas waay macna waxaan soo iibsanaa saaxiibka computer ma waxaan soo iibinaa computer ama saaxiibka computer usoo iibinaa waay ma fahanteen marka accusative ka soo hadleen oo kale waxaan dhahaynay du schreibst einen Brief yani adiga waxa qoraysaa warqad du schreibst waxa la qoray maxaa waay einen Brief marka einen Brief waxa waaye accusative waay shay la qoray waay waa einen waa den ma fahanteen einen der den waxaan inaan dhahno hooyada aa u qoraysaa warqad waxaan haysanaa 2 qof iyo hal shay 3 aan haysanaa marka 2 qof iyo hal shay 2 qof maxaa waay waa adigii iyo hooyada iyo warqadii marka wax toos loo qoray waa warqada direct object waay waa accusative qofka loo qorayo indirect waaye oo wax waa hooyada waaye hooyada waxay noqonaysaa dative wax loo qoray warqada waa accusative qofka qoray waa adiga waa subjective waa nominative hooyada maxaa waa marka waa d okay waa d markii la joogo accusative d waay laakiin markii dative la joogo der ay noqonaysaa haddii ay ahayd meine waxay noqonaysaa minor haddii ay ahayd deine mutter waxay noqonaysaa diner ay noqonaysaa dative la jooga marka waxa leedahay marka du
schreibst deiner Mutter einen Brief. Du schreibst deiner Mutter einen Brief. waxaa u qoraysaa warqad hooyada. marka hooyada wax indirect wax la qoraya accusative waay. ina ogaato muhiim ah because accusative marka la joogo article ka iska fiirinaysaa. haddii oo brief wax la qoraya accusative ay tahay waxay noqonaysaa einen Brief ay noqonaysaa. hooyadana meeshii ahayd deine ahayd waxay noqonaysaa deiner because die waxay isku bedeshaa dativeka der ay noqotaa. haddii deine tahay deiner. marka waxaan dhehnaa marka sie gibt den Stift. ayada waxay siisay maxaa la dhahay qalinka. marka qofka siisay lama la sheegayo. marka waxa la siinaa macnaha sie marka waxaan haysanaa hal qof iyo hal shay accusative waa. marka der Stift waay. marka waxay noqonaysaa den Stift. sie gibt den Stift. haddaan hal shay haysano iyo hal qof aan haysano waa accusative. marka jumladda haddaan rabno dative inaan ka dhigno waxay ayada anay isiisay qalinka. marka laba qof haysanaa iyo hal shay. ayadii iyo anigii oo laba qof ah iyo shayga la siinayo oo ah qalinka. direct objectiga uu ku dhacayo waa qalinka Stift waa accusative. qofka indirectiga wax la siinayo waa aniga dative ha noqona. ish maxaa la dhahay ish marka ish waa accusative waxa way nominative ku waa ish. dative keeda waxay noqonaysaa mia. accusative waxay noqonaysaa mish. kuwaas idima sheegin laakiin waa video soo socdaan kulli ku sharxi doona. igan qayb gooni ahaanaas sidee nominal isku bedelayaan isha magacyadaas isku bedelayaan. hadda aniga guud ahaan raba inaan sharxo nominative-ka maxaa waa accusative maxaa waa dative maxaa waa. laakiin magacyadaas isku bedelay waa idin sheegi doonaa ish mish mia du dish dia si isku bedelayso waa idin sheegi doonaa. laakiin hadda kaas uma jooge. marka waxaan rabaa inaan dhahno ayada aniga isiisay qalinka. qof wax la isiinay qalinka waa marka qalinka waa accusative noqona. shayga qof kale saddexaad oo wax la siinayo waa aniga. qofka wax siinayo ayadoo marka waxay noqonaysaa sie gibt mir ish ma dhahay ani dative aan ahay. marka dative ish waxay noqotaa mir. sie gibt mir den Stift. macnaha waxay isiisay qalinka. waxay isiisay qalinka. marka jumladda haddii aad akhrisid aad ku aragtid laba qof iyo hal shay saddex shay waa inuu ka koobnaadaa. yacni halkan shay labadan qof isku dar saddex waaye. saddex waxalood kala duwan ficilka xisaabinin. ficilka markii laga soo tago waa inaa haystaa qof iyo shay iyo qofka kale waa inay saddex shay ka kooban yihiin. laba shay iyo hal wax ama laba qof iyo hal shay. saddexdaas wax haddii ka kooban yihiin waa dative. haddii laba wax ay ka kooban yihiin sida maxaa la dhahay ii sheeg sida ish kaufe den computer oo kale. aniga waxaan soo iibsanaya computerka shay iyo aniga waa laba waxay ka kooban yihiin. haddii shayga magac qof iyo shay iyo shay ama maxaa la dhahay qof iyo qof oo ka kooban yahay sida ish liebe dish oo kale qof iyo qof haduu ka kooban yahay oo wixii laba wax ay yihiin waa accusative. haddii shayga hal wax uu yahayna wax waaye nominative waa sida waa idin sheega oo ish bin abdi ish bin mustafa. ish iyo mustafa waa isla qofkii hal shay waay. macnaha hal qof waay. marka jumlada hal qof ka kooban tahay waa nominative. markay laba qof ka kooban tahay ama qof iyo shay ka kooban tahay waa accusative. markay ka kooban tahay saddex shay ama saddex qofood ama laba qof iyo shay saddexdaas waxay ka kooban yihiin waa dative. kulli casharo badan waa ka soo sameyn doonaa. waa wasiirku idinkaga tagay sida nabadgelyo maca salaama bye bye.